بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ducada 12aad ee silsilada duco iyo dareen. ducadani waxay ku jirtaa fi suurati aali cimraan. waa duca ay ku dacaysteen xawaariyiintii nebi ciise rumeeyey ee u gargaaray markii dadkii kale ay kasoo horjeesteen. waa duco aada u cajiiba. waxay odhanaysaa rabbana aamanna bima anzalta واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ربيغيو إلهي ربوبيديسا آيات كبريسا oo ah inaad qiraysid inuu isagu rabbi yahay, khaaliq iyo abuure uu isagu yahay, ilaaha adduunkan kala dabaraya uu isagu yahay, isagu master iyo mudane yahay, inakuna aynu adoomo iyo dad hoggaansan waxa weeyaan rabbinimadiisa ogol adoonnimo inaynu nahay. rabbi markaad tiraahid ama rabbanaa markaad tiraahid, rabbigayo aamanaa ilaaha waanu rumaynay. waxyaabaha ducooyinka lagu aqbalo ama qurxiye ee bila ducada waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana watacaala waxa ugu sarreeya ee aad haysato aad ku bari kartid, ama ficil wanaagsan oo aad samaysay isaga keligii u barax tirtay oonad cid kale wax kaga doonayneed, isagii adigu isla ogtiina tira ilaahu anigii waxaa sameeyey, adiga aawadaabaan rabba uu sameeyey, ilaahu waxaa igaga fayd. ma aha inaad mana sheeganaysid, laakiin waxay ka dhigan tahay in waxaa maadaamaad bani aadamaad tahay oo awooddaadu iska kooban tahay, ood ilduufaysidood kacaysidood kufaysidood fogaanaysidood soo laabanaysidood khaldamaysidood waxa weeye meel ka dhacaysidood haddana soo kacaysido waladiina jaahaduu fiina, maadaamaan saakalka aan ku jirno ah inaan nafta ilaahay xaggeeda u jiidno, si kastoo khalad nooga dhaco aan u kacaa kufno, aan u rajo beelnoon waxaweeye nafteennu aynu marar badan ugu taagi weyno. haddana waxa yare aad haysato ee aad samaysay ee wanaaga ee adiga ilaahay dhexdiina idiin yaalla inaad mararka aad ducaysanayso ku ducaysataa ood ilaahay hor dhigtaa waxay ka turjumaysaa in aad waxa weeyaan aad ku dadaalaysa ducadaada in la aqbalo oo sincerely si dhab ah ay waxa weeyaan ilaahay ugu tagto ilaahay subxaana watacaala kaaga aqbalo. marka rabbana aamanna ilaaha waanu rumaynay. iimaanku waa waxa ugu sarreeyaan haysano. waxa laga yaabaa wax kasta oo kale in kala dhinaanshiyo uga jiro, laakiin iimaanka ah inaad qirayso ilaahay mooyaane ilaah kale in aanu jirno adduunkan aanu ka talinin oo master aan u ahayni, waa waxa ugu sarreeya raasumaalkaaga aad haysatid, waana waxa ugu sarreeya aad ilaahay hordhigi kartid. ilaahay waxaan ku rumeeyey adoon ku arkin. waxyaaba ilaahay ku ammaanay bay kamid tahay alif laam miim dhalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilghaybi wayuqiimuuna asalaa. haybka inaad rumaysaa. dad badan baa maanta gaaloobay, dad badan baa ilaahay dafirsan, dad badan baa ilaahay caayaya, dad badan baa adduunka ku kibrayo waxaweeye nicamkii iyo bani aadantinimadii inay ka shukri naqaan loogu taagla-yahay oo diidan adoonnimo inay aqbalaan. fa inaad aqbashay inaad adoon tahay waa sharafka ugu weyn ee markaad ducaysanayso aad ducadaada ku baritaari karto ama aad kor ugu qaadi kartid. marka rabbanaa aamanaa ilaaha waanu rumaynay, yaanu rumaynay bimaa anzalta waxaad soo dejisay oo kutubtaada ah. bimaa anzalta ilaaha waxaad soo dejisay ayaanu rumaynay. marka iyagu xawaariyiintu waxay ka hadlayeen injiisha, laakiin inaku haddaynu ummadii nabi maxamed nahay calayhi afdalu salaatu waatamu tasliim waxaynu leenahay kitaab kastood soo dejisay ama rasuul kastood soo dirtay ilaah waan rumaynay. iimaankayaga ilaah nagaga aqbal waxaanu ku weydiisanayno. waana iimaan kaamil ah. wax kasta oo ilaahay ambiyada usoo dhiibay oo kutub ah oo waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey inaynu rumaynay ayay ka dhigan tahay. ilaahay jiritaankiisa, joogitaankiisa, rabbinimadiisa, ilaahnimadiisa, awoodiisa, asmaadiisa, sifooyinkiisa iyo sharaftiisao dhan inaynu rumaynay bay ka dhigan tahay. aamanna bimaa anzalta ilaaha waxaad soo dejisay ayaanu rumaynay. watabacnaa waxaan raacnay alrasuula rasuulkaanu raacnay. wax kastuu la yimi, hadalladiisii, ficiladiisii, amaradiisii, wax kasta waanu qaadanay. waanu qaadanay ilaahayo. rabbanaa aamanaa bimaa anzalta ilaah waxaanu rumaynay wax kastood soo dejisay oo kutub leh. wax kastood xalaal ka dhigtay baanu xalaal u qaadanay, wax kastood xaaraan ka dhigtay baan u qaadanay inuu xaaraan yahay.
marar badan xataa inagu ku dhaxayna ilaahow haddana waanu qiraynaa. qiraalkaas ayaa ah yacni mansilada ugu sarreysa ee waxa weeyaan iimaaneed, inaad qirtidood qaadatid. dad baa dafirsan maanta jiritaanka ilaahay, dafirsan awoodiisa, dafirsan. qaar baa dhagax caabudaya, qaar baa xaashaah lay wiil buu dhalay, masaa'ibtaa dad baa ku sugan. fa adigu waxaad qiraysaa ilaahow adaan ku rumeeyey, wax kastood soo dejisay ayaan raacay oo ambiyadaadii baan rumeeyey. waad validate garanaysaa markaa iimaankaagii. watabacna rasuula, rasuulkii ayaan raacnay calayhi afdal salaati waatamu tasliim. maxaad markaa ku ducaysanaysaa markaad intaa soo dhigtay ducadaadii aad ku bari taartay? faktubnaa, ilaahow waxaad nagu qortaa oo naga magac nala yacni naga mid yeeshaa, waxaad naga mid yeeshaa maca shaahidiin. ilaahay subxaana watacaalaa maalinta qiyaamo markuu ummadaha isugu keeniyo, ambiyadoo dhan lasoo saarayo, ummadda nebi maxamed waxay noqonaysaa ummadda shuhada ah, maadaama kutubtii hore na ay rumeeyeen, nebi ka dambeeya iyo kutub dambo iyaga ka dambeeyaana aanay jirin, ummatan wasatan ay tahay. waxay ka markhaati kacaysaa, waxa dhacaysa in dadyowga iyo aqwaamta qaar ay dafraan ambiyadooda, yidhaha noomuu keenin, waxba noomuu sheegin, halkaasaas may ahayn. laakiin ummadda nebi maxamed sharaf ilaahay wuxuu u siinayaa inay markhaati furaan oo yidhaahaan ilaahayo annagaa ka markhaatiyo, kitaabkeygii ayaad nala ku sheegay qisadaasi nebigaasi wuu gutay risaaladiisii, laakiin dadkan iyagaa kibraya. yacni ilaaha waxaad naga mid dhigtaa kuwa shuhadada noqonaya. inaad shahiid noqoto waxay ka dhigan tahay inaad adigu sugnaatid marka ugu horeysa, ood ku dhimatid miladan islaamnimo, aad ku dhimatid adoo nebi maxamed calayhi afdal salaatu waatamu tasliim raacsan. inaad dhimatid ayaad ku mudan kartaa inaad ka mid noqotid shuhadada. ka markhaati kacdid xaqa, u markhaati kacdid ilaahay iyo wuxuu soo diray. waxway dadkani markay leeyihin ilaah waxaa maan noo soo dirin, nebigaasi saan ama odhanin, ay dafirka iyo dhinaayalka ku jiraan, waxay ka dhigan tahay ilaahw cadaalad yacni meesha ma taalo, dee rasuul aan naloo soo dirin baa waxweeyaan maanta aanu ku cadaab mudanayna. marka beentaas in aad ka nasaxdid ilaahay oo tiraahid ilaahow anaa ummadii nebi maxamed ka mid ah oo kitaabkaygii ku taalay, kutubtaa waad soo dejisay, ambiyadaana waad soo dirtay, weyna waxaweyaan gaarsiiyeen ummadahoodii dadkan iyagaa waxaweyaan ka leexday xaqi. waxaa aad ku mudan kartaaba mansilada aad ku gaari kartaa in adigu horta sugnaashiyo lagaa helo. falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. fa ilaah waxaad naga dhigtaa, faktubnaa maca ashaahidiinna waxaad naga dhigtaa kuwa markhaati kacaya maalinta, ee ka markhaati kacaya kelinimadaada, ee rumaynaya rusushii hore iyo rasuulkoodaba calayhi afdal salaatu waatamu tasliim, kuwa soo raacay amarkaagii, kasoo waxaweeyaan feejignaaday wax kastood u diiday. ilaahu qolyahaa nagu dar maalintaa, karaamada ilaahu na sii, nataag maalintaa meesha waxaweeyaan xaqa aanu kaga markhaati kacayno. annaka yaana lagu markhaati kicin, annaku yaanan mulxidiin iyo waxaweeyaan ilaahay koodiyo noqoninoo aanan maalintaa qayb ka noqonin dadka dafirka ee dhinaayalka ku jira. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. sababtaasaan idinka dhigay ummad dhexdhexaada, si maalinta qiyaame haddaad sugnaashiya la timaadaano nebigiina caleyhi afdal salaatu waatamu tasliima sidiisa u raacdaano, idinkoo muslina oo khaalisa aad soo dhimataan, aydin shuhado ugu noqotaan ummadaha kale dafirka la imanaya. yani waa waxa ugu horeeya, waa waxa ugu sarreeya ee qof ilaahay weydiisan karo subxaana watacaala. waxaa ka dhalanaysa oo ducadan ku hoos jirta mujarad aad tiraahid faktubnaa maca shaahidiin, sugnaanshiyo inaad weydiisanaysid. hadaad shuhadada ka mid tahayna safkii nebigaad raacday, hadaad safka nebiga raacdidna jannaad mudatay bay ka dhigantay. marka ducada maxay leedahay? rabbanaa aamanaa bimaa anzalta waattabacna arasuula faktubnaa maca shaahidiin. rabbanaa rabbigayow aamanaa waanu rumaynay bimaa anzalta wax kastoo soo dejisay oo kutub leh oo ambiyo leh aada usoo dhiibtay, oo waxaweeyaan wax kastoo soo dejisay ayaanu rumaynay, wax kastoo tiri ku dhaqmaanu rumaynay, addoonnimaanu ogolnahay.
واتبعنا الرسول رسول كبان الرعني عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لا كوات شعلاتي نقدق مدام الرسول كراني عليه الصلاة والسلام. فاكتبنا إله واحد نقو قرطا ودمعود نقدق تايود مالنتانا نصو صارتا مع الشاهدين دادك مرخاتك عيا سقناشي أدونك كجد تجي يكون مرخاتك عيا ومذاها كله أي كديان تايدو عداسي.